wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Soomaaliland oo weheliyo barasaabka gobolka Awdal ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee degmada Qulujeed. Dhagax dhigga xaruntan oo noqonaya mid laga dhidibataagay goobtii ku habboonayd ee ay taalay baahida adeeg ee ay qabaan xoolo dhaqatada tiro badan oo deegaankaasi ah ayaa dhismaheeda waxa hirgelinaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo kaashanaysa Banka Horumarinta Afrika iyo urur goboleedka IGAD. waxaana wafdigan markii ay gaareen deegaanka Qulujeed loo sameeyay soo dhaweynaad u diran oo aan loo kala hadhin taasi oo kulmisay mas'uuliyiinta degmada, madaxda dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo dadweynaha degmada Qulujeed. waxaana ugu horeyntii duqa degmada Qulujeed mudane Maxamed Cismaan Hadoon oo ka waramaya baahida uu deegaanku u qabo xaruntan xanaanada xoolaha uu yidhi waxaanu ku soo dhaweynaynaa degmada Qulujeed iyo deegaankeeda waxaan niga mahad celinaa dhagax dhigan had noo dhagax dhigaysaan muxuu ahaa goobtii xanaanada xoolaha lagu daweynay hadnoo dhagax dhigaysaan idinkiiyo hay'adda fulinaysa ee IGAD iyo ururka muxuu ahaa fulinaya ee kimis qaatay qandaraaska aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal iyo sarkaal ka socday urur goboleedka IGAD oo iyaguna halkaasi ka hadlay ay hoosta ka xariiqeen madashan maanta aynu joogno ee ah dhagax dhigga ay yeelan doonto wasaaradda xanaanada xooluhu taasoo iska kaashadeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo goboleedka IGAD kaasoo noqon doona xarun weyn oo ballaaran laguna lagu daweyn doono xoolaha lagu shaybaari doono sidoo gudoomiyuhu uu sheegay halkan waa xuduud weeyaan halkan dararkii xoolaha ku yaala meelaha xilliga xooluhu maadaama ay xuduud lahayn ay isku socdaan xilliga markuu imika xaysku bilaamo kale xoolaha Itoobiya ka imanaya waa meelaha marinada ay maraan waxay noqon doontaa meel goob xoolaha markay ama xooleynu ka baxayaan wadanka ama wadamada injaarka nahay ay xooluhu ka soo galayaan goobo waxay noqon doontaa ugu muhiimsan ee caafimaadka xoolaha lagu hubiyo. xarunta tan kolley waxa ka kaashaday anagoo IGAD mashruucayaga IGBAC Arlak leeyahay oo donorkuna uu yahay African Development Bank. waxaan jecelahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama anagu aanu dhismihii bixinay in ay dadkii ka shaqeyn lahaa dhaqaatiirtii keenaan xaruntana ay noqoto xarun shaqeysa oo ay ka howlgalaan dhammaan shaqaaluhu kulay dawooyinkiina aan keenaynaa. balasaabka gobolka Awdal mudane Xasan Daayir Xadi oo isaguna ka dareen celinaya ahmiyadda ay xaruntan u leedahay xoolo dhaqatada deegaankaas ayaa tilmaamay farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo maanta aniga oo ay emergency tahay waxa ay degdeg arintani mashruuca dartii baan u imiday ee booqashadii ballaadhnayd isku wareysanaynay isugu imanayna way dambaysaa waxaan u soo degdegay bal arintan oo wasaaradda xanaanada xooluhu qorshaysay iyadoo fandirka uu leeyahay Banka African Development Bank oo ay horjooga ka tahay ururka IGAD oo iyagu fulinaya iyo qandaraas qaatihii la socda oo isaguna imika halkan jooga wasaaradda xanaanada xoolaha inooga wakiila wasiir ku-xigeenkii oo nasiib u helay inuu isaguna goobjoog ka noqdo oo la kulmo in mashruucan maanta ay nasiibkiisa noqoto inuu isaguna aw gobolka la dhagax dhigo oo wax qabadkiisii u horeysay noqon doona aad iyo aad baan isagana u soo dhaweynaynaa soo dhaweysaan ila soo dhaweysaana way mudan yahay inta dabadeed waxaan dhagax dhigi doonaa wasiirkan ku soo dhaweynay mashruucaas oo nasiib u helay waa halkan Qulujeed bay labada wihiin mashruucba mid halna kan iyo jirjir labadaba waa ka sameeynaa. ugu dambeyn ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane Maxamed Maydane Ibrahim oo hoosta ka xariiqaya sida ay wasaaraddu ugu heelan tahay adeega xoolo dhaqatada iyo mudnaanta ay siinayso deegaanka degmada Qulujeed. waxa uu yidhi farxad bay ii tahay maanta inaan healthy boss xarunta caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha u dhagax dhigo degmadeeda Qulujeed oo ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka Awdal. siyaasadda dawladdu waa inay dhiiri geliso xoolaha oo ah laf dhabarta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay yihiin xooluhu sidaa la ajligeed waxa naga go'an inaanu dhiiri gelino oo xarumaha caafimaadka ee lagu daweynayo xoolaha dalkeena si loo helo neef caafimaad qaba baacadkiisa iyo caanihiisuba caafimaad qabi karaan. waxaan kula dardaarmayaa kambaniga soo qaatay qandaraaska inay dhisto wax tayo leh
oo wanaagsan oo dalka iyo dadkuba ay u aayaan gudoomiyaha iyo dadweynaha reer Qulujeed marka meesha loo dhiso ilaalinteeda iyo daryeelkeeda iyo ka warhaynteeda inay isku hawlaan inaga oo la kaashanayna cid kasta waa xarun aad u ballaaran Cabdulla Ali Yusuf on Cable TV Borama